Barasabka gobolka Murudijeex Jaamac Xaaji Axmed Cabdi ayaa ka waramay xaaladii roobabkii ka da'ay caasimadda Hargeysa iyo gobolka Murudijeex. Waxa uu sheegay barasabku in roobabku khasaaro dhimasho aanay geysan balse ay qaadeen gaadhiyo aad u tiro badan sidoo kalena guryo badan ay galeen biyahaasi oo u dhawaa dooxa caasimadda Hargeysa. Sidaan loo wada socono roob mahigaana iyo ilaa maanta ka da'ayay caasimadda Somaliland guud ahaan gobolka Murudijeex iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland nimcada ilaahay inoo shubay ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa kulli raxmaadku markuu da'ayo dhibaatooyin ayaa yimaada caawa roobkii caasimadda ka da'ayay ilaa maqribkii ilaa galabta wuxuu geystay khasaare runtii maal ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare nafeeda inta aynu ka warhayno waxaan u mahadnaqayaa ciidamada kala duwan ee qaranka oo heegan ku jiray ilaa intii uu roobku da'ayay ciidanka dabdamiska ciidanka booliiska ciidanka traafikada iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka oo runtii aan oran karo waa ciidamo naftooda horeyaal ah oo aan roobkii kamay hooynin ilaa imika heegan bay ku jiraan daadka iyo runtii guryaha ay biyuhu galeen iyo gaadiidka arkayseen ee biyuhu qaadeen intaa way ku dhex jireen oo ay la tacaalayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala haydka jasaaysiiyo baan leeyahay ilaa hadda ma ogin wax khasaare nafeeda inamay soo gaadhin markaan wareysanay dhammaan laamaha kala duwan ee hawlgalka ku jiray gaadiid doora ayuu qaaday dooxo gaadiidkaasi waxay u badan yihiin geerash ku yaalay dooxa qarkiisa oo gaadiidkii ku xareysnaa uu daadku qaaday dhammaantood ama intoodii badnayd iyo meelo kala duwan oo iyagana uu gaadiid ka qaaday waxaa jira gaadiid ay soo badbaadiyeen ciidamada kala duwan ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska oo heegan ku jiray ilaa 3 gaari ayay soo badbaadiyeen waxay badbaadiyeen dad aad u tiro badan oo tirakoobka hadda ay noo soo gudbiyeen ciidanka dabdamisku 172 qof oo dhammaan xaafadaha kala duwan ee caasimadda iyo 3 gaari guryo badan baa daad ku galay khaasatan guryihii dooxa hareerihiisa ku yaalay daadku garbiyadu goostay ugu dhaafay tuga gudihiisa wuxuu ku fatahay xaafadii hareeraha ka xigay haday tahay dhinacan bridge-ka labaad ee caasimadda iyo haday tahay dhinacan New Hargeysa ama dhinacan Harwanaag iyo magaalada bartamaheeda ama bridge-kii weynaa sidaan loo wada socono bridge-ka weyn gaadiidka waa laga joojiyay saacadihii dambe afurtii iyo ilaa horaanteedii alxamdulillah hadda daadka hoos buu dhacay laakiin waxa la soo sheegayaa in daad kale oo xoog leh oo far badan uu soo socdo waxa uu khasaare gaarsiiyay daadku Irish Bridge-kii ku yaalay xaafadan 100 jire ee looga talaabi jiray xaraf oo isagana ciidamadu ay xidheen oo aan hadda laga gudbaynin oo khasaare gaarsiiyay daadku waxa hadda la soo sheegayaa in daad kale oo aad u xoog badan uu ka soo socdo dhinaca galbeedka fariinta halkan dadweynaha aan uga dareynaa waxa weeyaan in laga feejignaado xilliyadan roobku waxaynu galeynaa bishii May in laga feejignaado meelaha dooxyada qararkooda ah iyo laagaha oo dadku ay aad iyo aad u feejignaadaan dooxyada gaadiidku ka talaabayo oo aynu ognahay darawaliintu had iyo jeer in degdeg uu ku jiro oo habeen dhaweed dooxa barkhadle uu gaari weyn qaaday oo qalabka dhismaha sida ciidamada heeganka ku jira oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo oo runtii mar walba roobka aan ku hooyanaynin iyagana taliyaashoodu sida ay fareen waxay ku jiraan heegan waxay taagan yihiin dooxyada qararkooda waxay badbaadinayaan dadkooda ilaahay baa wax badbaadiyay iyagana waynu mahadnaqaynaa dadweynaha guud ahaan waxa loo baahan yahay in ciidamada la shaqeeyaan oo dhagnaglaadaan waxaan arkayay haddeerto nin gaarigiisii daadku u qaaday oo isagii oo ku ordaya ciidamadu ay hayaan oo xijinayaan dooxa qarkiisa oo la tacaalayaan naftiisii marka waxa weeyaan de maal waa la helaa laakiin naftu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala waa qaali ka dhigay haddaad adigu isku tuurto daadka naftaada haligtana de waxaad noqonaysaa ahlu naar haddaad adigu naftaada haligto daad ku tuurto marka mas'uuliyiinta gaadiidka wada iyo darawalada runtii waxa dhacdo marar badan in si qeyr mas'uulnimo ah ay iyadoo biyo soconayaan u soo maraan meelaha togaga ah mar horena waan sheegay darawal kasta oo si mas'uuliyad darro ah gaadiidka iyo hantida uu sido ugu soo geliya dooxyada
haddii naftiisu ay badbaado waa in lagula xisaabtamo oo maxkamad la geeyo oo sharciga la hogeeyo waayo wuxuu sameeyay mas'uuliyad darro waxa weeyaan habeen dhaweyd dooxa barkhadle iyadoo ciidanka heegan yihiin oo roobkii aanay ku hoyanin ayuu intii afurada eef ku hayeen gaari ka soo baxsaday dooxu soo galay isla markiiba daad ka qaaday marka kuwaas iyo kuwa la nooca waa in sharciga la horgeeyo oo hantidii ay baabiyeen iyo nafihii ay ahligeen ba lagula xisaabtamo runtii waxa loo baahan yahay dhamaanteen inaynu feejignaano oo aynu heegan wada gallo dhammaan laamaha kala duwan ee dawladda gobolka iyo degmada iyo ciidamada kala duwan heegan bay ku jiraan inta roobku daayana saasan heegan ugu jirayna hadii alla idmo ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaynu ka baryaynaa inuu nimcada uu inoo shubay nusqaanteeda inaga hayo dadweynahana fariinta aan ku adkaynayna waxa weeyaan inay feejignaadaan oo gaadiidka dooxyada laga ilaaliyo oo dadka laga ilaaliyo caruurta laga ilaaliyo oo guryaha dooxyada qarkooda ku yaalaana ay mar walba feejignaadaan kulay dadkeeni way meelihii laagaha oo dhan waa la xiriiriyay dhismayaal baa lagu xiriiriyay meelihii biyo marayeen geerasho waaweyn baa dooxa qarkooda la saaray oo hanti badan taalo taasina runtii waxay u baahan tahay in feejiga dheeraada aynu u yeelano aynu aad iyo aad uga taxadiro